kadib waxay u tageen boqorkii waaga xukumi jiray ee la oran jiray Herodos Akrima waxaana ku dhaheen dil ciise. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتم عنا ونكسن دمانتين داود يا سيدو دنتين با برنامجنا راح كصورني أصل كإبليس يا أصل كدة العور يا أصل كيهودا. حتى برنامج كانوا حكى لنا صوبت على يهود وسوق دجال أما مسيح دجال يهود وحسوق سينو صبحوا دجال عور ويكذبنا عبدا وكذبنا أساس كوبسدان أرلدا وأنا أكتليان markii soo baxay nabi ciise ay moodeen inuu soo baxay masiixoodii laakiin taas way ku hunkoobeen waxa arkan inuu yahay nabi alle oo xaqana ku taagan dadkana shirkiga leexinaya kadib markaas ay isku dileen inay dilaan oo qudha ka jaraan intii aan soo bixin nabi ciise ayaa loo balan qaaday marka ay afar qodob dhacaan inuu soo bixi doono masiixoodaas loo balan qaaday afartaas oo kale ah kow waxa xoroobi doona dhulka barakeysan ee Falastiin xoroobintaasna waa dhulka laga qaado dadka Falastiin oo ay la wareegaan bulshada yahuudu number 2 waxa yahuuda muslimiinta ay u laaban doontaan dhulka barakeysan ee Falastiin kadibna way hagaajsan doonaan number 3 waxa dib u soo noqon doonta dawladda barakeysan ee weyneed ee iskaga dambeeyeen Daawud iyo Suleymaan way la baxeen waayihii dahabiga ah ama casru dahabiyi number 4 dawladda barakeysan ee Israa'iil mar labaad noqonaysa dawladda adduunka oo dhan ka talisa sidii ahayd waayihii Suleymaan iyo Daawud markaas ay suuroobaysaa inuu soo baxo masiixoodaas loo balan qaaday afartan qodob waxaayeen qaal laga saadaalinayo inuu soo bixi doono masiixoodaas kadib si kadisa ayay u bilaabeen burburintii reer Baabil ay u geysteen yahuuda oo boqortooyadii Faris ayaa jabisay kadib ay Roomaaniintii ka faramuroojiyeen yahuudi kadib ay yahuudi ku soo laabtay dhulkooda barakasna ee Falastiin markaas ayuu qaadxiisa inuu soo bixi doono masiixoodii loo balan qaaday waana dhabado waxa soo baxay masiix ibn Maryam balse badankoodii may raacin madaxyoontooduba ha u darnaatay dalashadiisina xumaan ayuu yeelan waydiina way ku takrifaleen waayo waxay sugayeen masiix la yaqaano ama la yaqaano inaaydiisa oo kadib xukuma sida ay rabaan aanan xukumin sidoo Ilaahay rabo laakiin nabi ciise wuxuu noqday nabi alle oo sidoo alle rabay ayuu kookan u maamulay kadib yahuudi ma kartay inaanu nabi ciise ka soo socon rajooyinkooda ay doonayeen ay kadib shirqoon u maleeyeen kaas oo ah midkii lagu dili lahaa waxaana ku dhaheen dil ciise waana ku raacay maadaama ay yahuud agtiisa qiimo weyn ka lahayd labadiisa garabna ay ahaayeen yahuud markii arkeen nabi ciise oo loox agtooda ku tirsan oo lagu taagay ay dhaheen ma dhici karto inuu noqdo masiixiina waayo uu dhintay oo wali dhulkeena barakeysna maanan xoreysan oo wali Rooma ayaa gacanta ku haysa yahuuduna waxay ku hayeen sidoo loo bedelo kutubta iyo shuruucinka diiniga islaamka ah maadaama ay nabiyadoodii ugu sii degan masiix oo nabi kasta uga degay ummadiisa masiixaas ay dhaheen war masiix la sheegayaba waa kaas waxay ka wadaan dajaal cawar halkaas ay yahuud ku ogaatay in masiix la sheegay aanu ahayn in Maryam ee uu yahay mid kale oo ah masiixu dajaal oo saas ay kadib ku cabudeen iyagana arag masiixaas taasna waxa aaminsiiyay oo ku qalciyay saaxiriyaashoodii oo dhaxiyay iyaga iyo dajaal cawar ama iyaga iyo ibliis dilkii ay moodeen inay dileen masiixu ibn Maryam oo ku markii loo xaasaanayeen ninkaas ay moodeen inuu haa masiix ibn Maryam laakiin lama ogaanin illa la xaqarnay kadib uu soo degay kitaabkeena quraanka ah kariimka quraanka ayaana sheegay inaana dilin oo aan jir dilin ee loo kiisay mid iyaga kamid ah ama asxaabtooda kamid ah oo kuwii la socday waxaanu soo bixi doonaa qiyaamaha oo wuxuu dili doonaa masiixu dajaal haddaba sixirreeshi si ay yahuud qalbiyadooda ugu weynayaan dajaal ay alifeen sheekaha markuu soo baxay dajaal wuxuu soo aftari doonaa gumeysiga iyo ku taagdareenta lagu haysto yahuuda yahuud meel kasta kala joogta ee meelaha lagu gumaysanayna uu su keeni doonaa oo hal meel ayuu ku keeni doonaa waxaanu soo aftari doonaa dhibaatooyinka adduunka oo dhan oo dhulka nabad ayuu ka dhigi doonaa wixii yahuud oo dhan ah wuxuu isku keeni doonaa Falastiin wixii yahuud cod ka dhigtana cagta ay mari doonaan caasimadna wuxuu ka dhigan doonaa Urshalim oo ah magaca u yaqaanaan Qudus waxaanu qasri ka dhigan doonaa haykalka Saleebaan waxaan wax ku xukumi doonaa labadii shariicood ee yahuuda oo midna qorna midna oraa ahayd waxaana aaminsan markii alla nabi Muuse uu kitaabku soo dhibiyay inuu barnaw soo qoray ban afka ugu soo sheegay inta afka lagu soo sheegayna waxa dhahan waa sixir nabi Muuse intii ka dhaweyd ayuu sheegay intii ka siyaag dhaweydna waxa uu sheegay iyaguna intii ka siyaag dhawaayeen kadib yahuudi ayaa ka baqday in xogtaas lumto waana qoreen waxaana ka sameeyay kitaab la dhaho Talmud nabi Muuse alla afka xugu Muuse sheegin ee waa sixir iyo kurtukuteen ayuu sameysteen labada kutub ee Talmud iyo Tawraad waxay ugu jirtaa halkeenaga ugu jirto quraanka iyo saxiix Bukhariga halkaas ayana ka soo jeeda sababta yahuudu ay dajaal uga dhigteen Ilaahay